madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu maanta qiray in looga adkaaday dagaalkii uu ka dhaxwaday baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadanaa in la hor istaago qorshaha Villa Soomaaliya ee la xiriira wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynihii hore Farmaajo qoraal ayuu bartiisa Facebook goor ku daabacay waxaana uu walaac ka muujiyay hanaanka ay ku doonayso Villa Soomaaliya inay wax kaga beddesho qodobo ka mid ah dastuurka Soomaaliya sidaas oo kalena waxa uu cadeeyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhagaha ka fureystay dadaallo iyagu ka siyaasi ahaan ay wadeen oo ku aadan in markaasi wada tashi laga yeesho arrinta la xiriirta wax ka beddelka dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya. waxaan rabaa daawadayaal inaan idin la wadaago qoraalka uu goordhow soo saaray madaxweynaha hore Farmaajo kaas oo sidaas oo kale ku muujinayay waxa ka dhalan kara haddii baarlamaanku ay markaasi talaabadan ku dhaqaaqaan maalinta Sabtida ah ee nagu soo wajahan. madaxweynaha hore Farmaajo waxa uu ku bilaabay qoraalka uu soo saaray natiijada la sii og yahay ee qorsheeyeen madaxtooyada iyo guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay ka soo baxdo fadhiga labada aqal ee loo ballansan yahay maalinta Sabtida ah 3 Maarso 2024 waa mid sii cadeynaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan daneyneynin wadajirka iyo sidaas oo kale midnimada ummadda Soomaaliyeed oo uu ka shaqeynayo oo kaliya dana u gaar ah ayuu ku bilaabay qoraalka uu soo saaray madaxweynaha hore Farmaajo. qorshaha haatan socda ee madaxweynuhu uu ku doonayo inuu kula wareego awoodaha baarlamaanka iyo guddoonka labada aqal ee la xisaabtan la'aanta xukuumadda doorka hogaamineed ee ra'iisul wasaaraha iyo hanaanka doorashooyinka gaar ahaan mas'uuliyadaha heer xukuumadeed iyo heer dowlad goboleed ee soo xulista gudiyada doorashooyinka waa mid cadeyn u ah nooca dastuurka iyo doorashooyinka uu doonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu yiri waxaa nasiib darro ah in madaxweyne Xasan uu dhagaha ka fureysto talooyinkii iyo dadaaladii lagu saxayay hanaanka loo marayo dib u eegista dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed laga gaaro qodobada masiiriga ah si dalku u yeesho dastuur heshiis lagu wada yahay. waxa uu sidaas oo kale raaciyay madaxweynaha hore Farmaajo guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay qaadeen jid halis ku ah sharciyada iyo jiritaanka dowladnimada dalkeena. sidaas awgeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan kuna soo celiyaan golaha shaqada ay wakiilka uga yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ilaalinta sharciga iyo midnimada dalka. dastuurkan la rabo in lagu meel mariyo hanaan sharci darro ah oo aan haysanin aqbalaad bulsho iyo heshiis umadeed marnaba uma aqoonsan doono ama ma noqon doono dastuur leh sharciyad iyo dhaqangal maadaama uusan ka turjumaynin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo qodobadii tiirdhexaadka u ahaa dib u heshiisiinta siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed sida awood qaybsiga. madaxweyne Farmaajo waxa uu sidaas oo kale yiri go'aan kasta oo baalmarsan xeer hoosaadka baarlamaanka heshiiska siyaasadeed ee madasha qaranka oo markii horeba ay ka maqnayd Puntland iyo Habraaca si fowdo ah loogu cadeeyay oo aan heshiiska lagu ahayn ee guddoonka baarlamaanka ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan hindisaha halka dhinac ah ee dastuurka waxa uu noqonayaa mid aan sharciyad haysan. haddii madaxtooyadu ay ku sii dhaga adeegto qorshahan halista ku ah qarannimada Soomaaliyeed waxaa muhiim ah in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka soo qaybgalayaan mas'uuliyiinta iyo daneeyayaasha siyaasadeed ee Soomaaliyeed kaas oo lagu ilaalinayo dowladnimada iyo midnimada dalkeena iyo dadkeena ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkii uu soo saaray madaxweynaha hore Farmaajo ee uu kaga hadlayay qorshaha ay wado Villa Soomaaliya.